kusoo dhawaada excel waxaan ka fargaraynaa waxyaalaha excel lagu samayn karo maantay waxaan arkaynaa saacadaha aan shaqaystay excelka ma ku samaysan karaa objectivekeena waxaa maanta inay noo suurto gasho inaan aragno sida saacadaha lagu calculate garaysto excel waxaa u baahan tahay halkan oo maaragtay sum function ama formula wixii aad dhisatid iyo halkan oo symbol maaragtay macnaheedu subtraction formula inaad gashatid iyo time formatyadan inaad time formatkana iska saxdid intaas kaliya u baahan waa wax fudud waa idin tusaya markaas oo shaqeyn marka waxaa la equals timekan shaqada dhameeyay minus timekii aan bilaabay shaqada meeqa saac weeye waa kaa marka wuxuu dhahay 8 laakiin wuxuu yidhi 8 am meeshaan ka rabnay 8 hours okay formatkaas waa qaldan yahay laakiin bal hadhow aan saxaynaa marka wuxuu yidhi waa kana 8 am 8 am okay marka intaan friday intaanan gaarin bal horta intaan ii saam garee waxaa dhahdaa intaan saam isi intaan aan shaqeeyay ilaa so far macnihii imsa how many 4 waxaan shaqeeyay days 4 times 8 waxaan u baahanahay 32 okay hours aan shaqeeyay marka wuxuu dhahaa fiiri 8 am ka weli taagan marka waa ujeedaa qof 4 shaqeeyay 4 times 8 32 hours inuu maanta marayo halkaan inay ahaatay ahayd 8 am waxaa qaldan keliya formatka timeka formatyadiis keliya qaldan formatyadaasaan saxaynaa keliya wax kale anagoo aan inputkaas kaleeta anagoo waxba ka bedelin right click samee format cells tag timeka tag tan waxaan ka dhigayaa meeshaan ay hadda saan ka tahay mujida tanaa hadda ku jirto sooma uma baahni tanaan gelinaya 130 pm kaan gelinaya okay aan leh wax kaloo isbedelana male maaragta format keliya tanna sidoo kale ilaa friday tag markaan waxaan isticmaalaya shortcut kii la dhaho control 1 timekan tagaya tan waxaan gelinayaa 1330 formuladan gelinaya tana hadda ku jirto sooma ma raba tanaan gelinaya okay aan leh marka tan weli isma bedelin tan laftirkeeda ayadana waxaan u baahanahay inaan format gareeyo laakiin custom format aan tagaya waxaan u baahanahay HMMS halkaan ka raadi oo H2 ay ku jirto brackets waa tanaa okay marka sstarna uma baahni waa secondadii waaye magarat intaraan leenahay waa ka hadduu noo saxay marka wuxuu dhahay 32 hours yes hadda waa saxsanta fridayna aan ku darsano waxaan dhahnaa friday 11 soo galay wuxuu ka baxay 7 and another 8 hour shaqeeyay ku darso marka 32 kan weli taagantahay way u taagantahay double click garee because 8 hour kan kumaada darin 8 hour kan ku darso si ugu dari kartaa kan soo jiid mida kan soo jiid inta ama star over samee oo samka mar labaad soo samee like this equals sum ma fahanta annana kulli soo wada gasho maaragta interne markaa 40 hours waa ognahay 5 times 8 inay tahay 40 hours 40 hours keenan waa haysanaa kaba soo qaad inta 7 ma ahayn 720 oo shaqada soo galay marka waa kaas waxa dhahay 7 hours and 40 minutes shaqeeyay totalkiisina 39 hours intana kaba soo qaad inta ma gelin 5 kama bixin wuxuu ka baxay 9 soo ma halka 9 keeda kale ka baxay 9 to 9 uu joogo 12 hours 12 hours marka wuxuu dhahay 43 hours total waxaan fahanay marka oo aan baranay anagoo iska saxayna kaliya time formatka isticmaalnay that maaragtay sum functionka iyo formulas yarka subtractionka ah time formatyadana iska saxnay markaa fiiris halkan waxaa tagtaa time formatka soo fiiri kana ku jira ma fahanta kana soo fiiri mida formatkaasaa ku jira intana fiiri custom formatkaasaa ku jira keliya waxaa noo suurto gashay inaan saacadaheeni si sax ah ugu calculate garaysano excel ma garatay marka waxaa inoo ballana next video amaba next clip as I always say